kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashan jecelnahay idilkiinba meel waliba aad nagala socotaan kuna soo dhawaada qaybtii labaad barnaamijkii aanu kaga hadlaynay xaaladda guud ee xaafadda Islii magaalada Nairobi dalka Kenya oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Sama TV ay ku leedahay magaalada Nairobi. qaybtan labaad ayaanu kaga hadli doonaa ganacsiga guud xaafadda Islii iyo waliba xaaladaheeda. xaafadda Islii waxay caan ku tahay ganacsiga marka magac ahaan iyo muuqaal ahaanba la eego. xaafadda Islii ayaa ah mid kaalin wanaagsan kaga jirta kala horeynta xaafadaha dalka. Islii waxaa ganacsigeeda gacanta ku haya dad Soomaaliya oo ka kala yimid inta badan wadamada ka baxsan dalkan Kenya. canshuuraha dawladda Kenya ee ka hesho xaafadda Islii ayaa ah mid ka badan xaafadaha kale ee dalkan. waxay Kenyaanku ku tilmaamaan dadka ku nool xaafadda Islii inay yihiin dad khibrad wanaagsan oo leh ganacsiga. ammaan badan ayay Soomaalidu ku helaan howlaha ganacsiga oo dalkan ay ka sameynayaan. dadka ka ganacsada Islii ayaa kala xeer ah marka dhaqaale ahaan la eego. qaar baa lacag badan iyo guryo ku leh xaafadan, kuwa kalena waa heer dhexe, halka inta soo hartayna ay hoos tagaan kuwa iyagu waxoogaa dhaqaale ahaan dhaama. ganacsiga xaafadda Islii waa mid si xawli ah u socda, mar walibana sii kordhaya iyadoona ay sii badanayaan dadka ku baraarugaya howlaha ganacsiga xaafadan. ganacsiga ugu badan ee ka jira xaafadan Islii ayaa kan dharka iyo waliba qalabka elektroonikada oo faa'iido ahaan ka yar wanaagsan kuwa kale sida ay sheegeen dadka ganacsada qalabkan. anka kale marka aad eegto qaar kamid ah ganacsiga Islii waxaad ku arkaysaa raashinka Soomaalida dhaqan ahaan lagu tiriyo inay iyagu isticmaalaan. waxaana kamid ah digirta, subaga iyo waliba caanaha oo laga soo kala maalo geela iyo waliba lo'da oo inta badan ay indhahaagu qabanayaan marka aad xaafadda ku dhex sugan tahay. tanina waxaa lagu tiriyaa in dhaqankii Soomaalidu ay lahaayeen dalkoodana ay inta badan la joogeen ay iminka gudaha dalkan Kenya ula soo hayaameen. qaybtii labaad waanu kaga hadlaynay daawadayaal ganacsiga guud ee xaafadda Islii waa nagaynta. dhanka kaamirada waxay joogay saaxiibkay Faysal Asiir Maxamed, isku dubridkana waa Maxamed Xaaji Xasan. waxaana barnaamijkeedii la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib. tan iyo kulanka xigana daawadayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah.